waxaa dunida ku yaala ilaa iyo 50 wadan oo aqlabiyadooda ama shacabkoodu ay u badan yihiin muslimiin. Inta badan dalalka Islaamka waxay caan ku yihiin kheyraadka saliidda, qaarkoodna waxay awoodaan inay helaan dhaqaale ay ku dhisaan awoodooda ciidan iyo weliba hubkooda. Haddaba muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa 5 wadan ee ugu awooda badan dunida Islaamka. waxaa kaalinta shanaad ku jira boqortooyada Sacuudi Carabiya. tirada ciidamada militariga Sacuudiga ee shaqeeya waa 480,000 oo askari. ciidanka keedka ahna waa 325,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Sacuudiga lagu bixiyo waa 68 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. waana dalka saddexaad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya militarigiisa guud ahaan caalamka. awoodda dhulka ee ciidamada Sacuudiga. boqortooyada Sacuudiga waxay qalabka ciidamada ka soo qaadataa dibadda, waxaana meelaha ay ka helaan ugu badan dalka Mareykanka. militariga Sacuudi Carabiya waxay haystaan qiyaastii 1,050 taangi iyo in ka badan 3,800 oo gawaarida gaashaaman ah. waxay kaloo haystaan 700 oo madaafiic iskood isu jiheeya, 120 gantaalada marar badan la ridi karo. haddii aynu eegno awoodda cirka ee ciidamada Sacuudi Carabiya, tirada guud ee diyaaradaha ay haystaan waa 920. 370 ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa dagaalka, 300 ka mid ahna waa nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters. nooca diyaaradaha dagaalka ugu muhiimsan ee Sacuudiga haystaan waa F-15, Typhoons iyo Tornado. haddii aynu eegno awoodda badda ee ciidamada Sacuudiga, isku darka maraakiibta ciidamada badda ee Sacuudiga ay haystaan waa 11. dalkan hadda ma haysta maraakiibta quusa biyaha hoostooda, kuwa wax burburiya iyo kuwa diyaaradaha xambaaratoona. waxaa kaalinta afraad ku jira Iiraan. tirada ciidamada militariga Iiraan ee shaqeeya waa 550,000 oo askari. ciidanka keedka ahna waa 350,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Iiraan lagu bixiyo waa 20 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. qalabka ay militariga Iiraan haystaan inta badan waxaa lagu sameeyey gudaha. waxaa kale oo jira kuwo laga keenay dalka Ruushka. haddii aynu eegno awoodda dhulka ee Iiraan, militariga Iiraan qiyaastii waxay haystaan 1,600 oo taangi iyo in ka badan 2,000 oo gawaarida gaashaaman ah, 550 oo ah madaafiicda iskood isu jiheeya, 700 oo gantaalada marar badan la ridi karo. haddii aynu eegno awoodda cirka ee dalka Iiraan, tirada guud ee diyaaradaha ay haystaan waa 850 diyaaradood. 130 ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa dagaalka, 120na waa nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters. noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu muhiimsan ee Iiraan haysato waa F-14, MiG-29, Mirage F-1 iyo Kowsar. awoodda badda ee dalka Iiraan, isku darka maraakiibta dagaal ee Iiraan waa 9. waxayna sidoo kale haystaan 33 maraakiibta biyaha quusta ah. Iiraan hadda ma haysato maraakiibta wax burburiya iyo kuwa diyaaradaha xambaaratoona. lambarka saddexaad waxaa ku jira dalka Masar. tirada ciidamada militariga Masar ee shaqeeya waa 440,000 oo askari. ciidanka keedka ah waa 480,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Masar lagu bixiyo waa 11 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. haddii aynu eegno awoodda dhulka ee dalka Masar, militariga Masar waxay haystaan qiyaastii 3,800 oo taangi iyo in ka badan 6,000 oo gawaarida gaashaaman ah, 800 oo ah madaafiicda iskood isu jiheeya, 1,000 gantaalada marar badan la ridi karo. haddii aynu eegno awoodda cirka ee dalka Masar, tirada guud diyaaradaha uu dalkan haysto waa 1,130 diyaaradood. 270 ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa dagaalka, 300 oo ka mid ahna waa nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters. noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu muhiimsan ee dalkan u haysto waa F-16, Rafale, MiG-29 iyo Mirage 2000. awoodda badda ee dalka Masar, ciidamada badda ee Masar waxay ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan Bariga Dhexe iyo Afrika. qalabka ciidamada badda waxay kala yihiin 2 markab oo ah nooca qaada diyaaradaha qumaatiga u kaca, 8 markab oo ah kuwa biyaha hoostood quusa, ilaa iyo 14 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulkaba. kaalinta labaad waxaa ku jira dalka Turkiga. tirada ciidamada militariga Turkiga ee shaqeeya waa 355,000 oo askari. ciidamada keedka u ahna waa 380,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Turkiga lagu bixiyo waa 17 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. haddii aynu eegno awoodda dhulka ee dalka Turkiga, militariga Turkiga waxay haystaan qiyaastii 3,045 taangi iyo 11,630 oo gawaarida gaashaaman ah, 943 oo ah madaafiicda iskood isu jiheeya, 407 oo ah gantaalada marar badan la ridi karo. haddii aynu eegno awoodda cirka ee dalkan, tirada guud ee diyaaradaha uu dalkan haysto waa 1,056. 206 ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa dagaalka, 471 waa nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters. 273 diyaaradahaasna waa kuwa tababarka. awoodda badda ee dalka Turkiga, qalabka ciidamada badda Turkiga ay haystaan waxaa ka mid ah 26 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulka, 12 markab oo kuwa biyaha hoostood quusa ah, iyo 35 markab oo kuwa kormeerka sameeya ah.
waxaa kaalinta koowaad ku jira dalka Bakistan. Bakistan waa waddanka kaliya ee muslimka ah ee haysta hubka nuclear-ka. tirada ciidamada militariga dalkan ee shaqeeya waa 654,000 oo askari. ciidanka keedka ahna waa 550,000. miisaaniyadda militariga Bakistan lagu bixiyo waa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. haddii aynu eegno awoodda dhulka ee ciidamada Bakistan, militariga Bakistan waxay haystaan qiyaastii 2,680 taangi iyo in ka badan 9,635 oo gawaarida gaashaaman ah, 429 oo ah madaafiic iskood isu jiheeya, 330 oo ah gantaalada marar badan la ridi karo. haddii aynu eegno awoodda cirka ee dalka Bakistan, tirada guud ee diyaaradaha dalkan u haysta waa 1,130. 357 ka mid ah diyaaradahan waa kuwa dagaalka, 331 waa nooc qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters, 510 oo ka mid ah diyaaradahan waa kuwa tababarka. haddii aynu eegno awoodda badda ee ciidamada Bakistan, qalabka ay ciidamada badda haystaan waxaa ka mid ah 10 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulka, 9 markab oo ah kuwa biyaha hoostood quusa, iyo 49 markab oo ah kuwa kormeerka sameeya.